My name is Dr. Mamoon Amin. I am an ENT and head and neck surgery consultant of Shifa Specialist Hospital. We have received a case. We have received a call from General Hospital for an emergency case, and when we arrived there, we diagnosed the case as posterior choanal atresia, which is a congenital disease, and it is a very rare disease, 1 into 8,000 case live birth. And this surgery is actually an emergency case, which has to be treated immediately because the kids, when they're born, they are obligatory nasal breather. So when they are nasal breather, they cannot breathe and they cannot feed also. We have operated upon this case endoscopically, and the kid now is, mashallah, he is breathing normally and he is feeding normally, and he is due to be discharged tomorrow, inshallah. أنا دايركتور كبود أما جنرال دايركتور هوسبيتال كشيف سبيشاليست هوسبيتال دكتور عبد الجامع محمود waxaan hadlay oo aad maqlayseen Dr. Mamoon Amin oo ah dhakhtarka qalliimada iyo daweynta cunaha sanka iyo dhagaha iyo burooyinka qoorta madaxa ayaan dhageysanay dab ahaan wuxuu qalay xaalad aad reer u ah oo cudurrada dhifka ah qaasatan caruur dhashay oo dhalaan cusub ah oo maalmo kaliya jooga adduunka oo yar isla markaasna cudurro kale badan qabay ilmahaas oo ku dhashay sanka oo xiran oo sankiisa qaybta dambe waa xirnayd oo ma lahayn duleelada gadaal buu ka xirnaa ma neefsan karin markuu dhashay ilmahaasna inta badan way dhintaan wuxuu ku dhashay isbitaalka weyn ee Mudug Regional Hospital buu ku dhashay isbitaalka guud buu ku dhashay waa loo yeeray dhakhtarka Shifa Hospital bay soo waceen maadaama anagu aan ku caawin jirnay xaaladaha specialistic aysan joogin hospitaalka ilaa anagu u dirno dhaqaatiirteena dhaqaatiirka uu tagay uu soo arkay wuxuu yiri xaaladan waa in degdeg loo qalaa waxa dhacday dadkii in hospitaalka lagu soo wareejiyo waayo qaybta qalliinka oo suuxitaanka u diyaar ahayn ilmuhu wuxuu qabo kaleeto duleel boodnaha ku qabay laba duleel boodnaha ku qaba marka waxa la yiri suuxitaankiisa hospitaalka in kama dhici karo oo qalabkii loogu talagalay ma haystaan oo qalabkaas wuxuu yaala kaliya hospitaalkeena run ahaantii waxa weeye qalliimo dhif ah waxaana suubin kara dhakhtar competent ama u diyaar garaysan si fiican takhasuska oo ah nin consultant ama istishaari weeye Dr. Mamoon Amin oo dalka Pakistan wax ku soo bartay asagoo dhalashadiisa Yemeni ay tahay marka case-kaas buu qalay waxaan aaminsanahay anigu aan ogahay maadaama dhakhtar caruur ahay ilmaha u dhashay cudurkan ku dhashay inta badan oo wiil wadnaha duleel ku jira inta badan u dhintaan maalmo gudahooda nasiib wanaag wiilka waa la soo wareejiyay hospitaalkeena ayaa lagu qalay hospitaalka Shifa Specialist Hospital ama Ex-Norway loo yaqaanay markii hore Norway ku caan baxay baa lagu qalay waa lagu najaxay amaliyadii ilmihi hadda waa fiican yahay saad ka arki kartaan sawirada markii hore ma neefsan karin waxna ma cuni karin hadda naaska caadi u shaqeeya u qabsanay oo cunaya neefsigiisuna waa caadi laana waxa ilmuhu markay dhashaan sanka ka neefsan xataa afka kama neefsan karaan guriga oo afka haduu qofku kala qaado qofka caadi hadii sanka la qabto afku kala qaado kan laakiin ilmaha markay dhashaan sanka u bay neefta ka qaadan karaan cunaha afka kama qaadan karaan saawadeed ba qatar ugu jiray ilmahaasi waxaan aaminsanahay hospitaallo weyn xataa ku yaala adduunka inay xaaladaas xaalad culus ku tahay iska badaa Soomaaliya meel walba ay noqoto ama ha noqoto Muqdisho ama Hargeysa magaalooyinka weyn ha noqoto in uu qalliinkaas suubiyo dhakhtarkan Dr. Mamoon waa dhakhtar aan keenay markii hore aan soo xulnay anagu aan khibradiisa soo eegnay inuu yahay specialist kaliya uusan ahayn inuu yahay consultant marka waa case-kii aan oran karaa saddexaad ama oo suubiyo xaalado reer ah waxa kamid ah gabar uu buro ka qalay bishii uu ka qalay I think February March ay taasna waa jirto uu buro ka qalay maskaxdiisa sanka inta u dhaxayso uu ka qalay oo gabadhii ay socoto maalmo kadib haddana ilmihii shalay la qalay waa taas iyo suuxitaankiisa oo ah suuxitaanka dhakhtarka suuxitaankan heer fiican buu ka qayb qaatay waayo suuxitaanka ilmaha wadnaha duleelo oo ilmo yar oo dhashay inta badan qatar bay ku yihiin suuxitaanka marka arrimahaas waa arrimo la rabo inay dadku ka faa'iideystaan dadku iska cararaan maalin walba dad baa waxay aadeen dibadaha ayagoon u baahnayn ama aadan Muqdisho kaleeto ayagoo u baahnayn xaaladaha dhaqaatiirta aan dareen waa ka warqabnaa bismillaahir rahmaanir rahiim Abdirasaaq Cabdulla warsamaya magaca dhaha waxaan ka eed magaalada Bacdweyne isbitaalo badan ayaa marsiyay gabadha sanka ayaa ka xirnay
isbitaalka hay'adda weynaan imid waxa la ii gudbiyay isbitaalka Leera Shifo gabadha ayaa lagu qalay gabadhii way fiicnaatay way bogsootay alxamdulillah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalkaas iyo ummadda dhan joogta waa u mahad celinayaa ayaga gaar ahaan Allah gacanta wuxuu la qabto Allah u barakeeyo anigu walwal badan ayaa ahayay gabadheeda Leera Milyuun Cabdirasaaq Cabdullaahi Warsame waa la bogsoonay hadda way fiicnaatay waa hurday alxamdulillah saas ayaa caalamka u sheegaya dhibku inta haystay neefta ayaa dhibaysay markii naas loo daayo oo kale cambaar dhilay neefta ku dhageysay ayadii waa iska xuraamaysaa dhib badan ayaa la soo kulmay isbitaalo badan waa soo marsiiyay alxamdulillah markan way fiicanta kii lagu guuleysay alxamdulillah anna waa hurday gabadhina way hurday war kale ma ah wixii dhamaa dhibkii dhamaanay waa naga qurbadii waa naga haad alxamdulillah